injiilka sida Yooxana u qoray cutubka 8 ciise wuxuu u baxay buur saytuun aroortii hore ayuu haddana macbudka yimid dadkii oo dhammuna way u yimaadeen oo intuu fadhiistay ayuu wax baray culimadii iyo farisiintii waxay u keeneen naag sinno lagu qabtay markaasay dhex joojiyeen oo waxay isagii ku yidhaahdeen macallimow naagtan waxaa lagu qabtay sinno haddaba muuse wuxuu sharciga nagu amray in la dhagxiyo tan oo kale adiguse maxaad ka leedahay iyada waxay waxaas u yidhaahdeen iyagoo jirrabaya si ay u helaan waxay ku ashkateeyaan laakiin ciise waa foorarsaday oo farta ayuu dhulka wax ku qoray laakiin goortay sii wadeen inay weydiiyaan uu istaagay oo wuxuu ku yidhi kii idinka mida oo aan dembi lahayn isagu horta dhagax ha ku tuuro mar kale ayuu foorarsaday oo haddana dhulka wax ku qoray iyagu markay waxaas maqleen ayay iska daba baxeen midba mid waayeeladii ka bilaabato ilaa kii u dambeeyey ciisena keligiis ayuu hadhay iyo naagtii dhexda joogtay ciise ayaa istaagay oo ku yidhi iyadii naag yahay xaggee bay joogaan ninna miyaanu ku xukumin waxay ku tidhi ninna sayidow ciisena wuxuu ku yidhi anna ku xukumi maayo soco oo hadda kadib ha dembaabin haddaba ciise ayaa mar kale la hadlay iyaga oo wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay nuurka dunida kii soo raaca gudcur kuma socon doono wuxuuse lahaan doonaa nuurka nolosha sidaa aawadeed farisiintu waxay ku yidhaahdeen marag baad isu furaysaa maraggaaguna run ma aha ciise baa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi inkastoo aan marag isu furo maraggaygu waa run waayo waxaan garanayaa meeshaan ka imid iyo meeshaan tegayo idinkuse garan maysaan meeshaan ka imid ama meeshaan tegayo idinku waxaad wax ka xukuntaan xagga jidhka aniguse ninna ma xukumo haddaan xukumo xukunkaygu waa run waayo anigu keligay ma ihi laakiin waa aniga iyo aabbahaygii soo diray sharcigiinna waxaa ku qoran 2 nin maraggoodu waa run anigu waxaan ahay kii isu marag fura oo aabbahaygii soo dirayna ayaa ii marag fura sidaa aawadeed waxay ku yidhaahdeen aabbaha xaggee buu joogaa ciise ayaa ugu jawaabay i garan maysaan aabbahayna garan maysaan haddaad i garanaysaan aabbahayna waad garan lahaydeen hadalladaas ayuu kaga hadlay meeshii khasnadu tiil intuu macbudka wax ku barayey oo ninna ma uu qaban isaga waayo saacaddiisii weli ma iman sidaas aawadeed wuxuu haddana ku yidhi iyaga waan tegayaa waadna i doondooni doontaan waadna ku dhiman doontaan dembigiinna meeshaan tegayo iman kari maysaan sidaas daraaddeed yuhuuddu waxay yidhaahdeen miyuu isdilayaa waayo isagaa yidhi meeshaan tegayo iman kari maysaan wuxuu ku yidhi iyaga idinku waxaad tihiin kuwa hoosta aniguse waxaan ka mid ahay kuwa sare idinku waxaad tihiin kuwa dunidan aniguse mid kama ihi kuwa dunidan haddaba waxaan idinku idhi dembiyadiinna waad ku dhiman doontaan waayo haddaydnaan rumaysan inaan isagii ahay dembiyadiinna waad ku dhiman doontaan haddaba waxay ku yidhaahdeen yaa tahay ciise wuxuu ku yidhi kii aan tan iyo bilowgii idinkala hadlay waxaan hayaa wax badan oo aan idinkala hadlo oo aan idinku xukumo laakiin kii soo diray waa run aniguna waxaan ka maqlay isaga waxaas ayaan dunida kula hadlayaa ma ayna garan inuu iyaga kala hadlay aabbaha sidaa aawadeed ciise ayaa ku yidhi markaad wiilka aadanaha kor u qaadaan markaasaad garan doontaan inaan isagii ahay iyo inaanan keligay waxba samaynaynin laakiin sida aabbuhu ii baray ayaan waxyaalahaas ugu hadlaa oo kii soo diray ayaa ila jira keligay igama uu tegin waayo mar kasta waxaan sameeyaa waxa ka farxiya isaga intuu waxyaalahaas ku hadlayey dad badan ayaa rumaystay isaga sidaas aawadeed ciise wuxuu ku yidhi yuhuuddii isaga rumaysatay haddaad hadalkayga ku sii socotaan runtii waxaad tihiin xartayda oo waxaad garan doontaan runta runtiina waa idin xorayn doontaa waxay ugu jawaabeen farcankii ibraahim baanu nahay oo weligayo addoomma ninna uma ahayn maxaad u leedahay waa laydin xorayn doonaa ciise ayaa ugu jawaabay runtii waxaan idinku leeyahay kii kasta oo dembi sameeya waa addoonkii dembiga oo addoonkuna guriga kuma sii jiro wiilkuse waa ku sii jiraa weligiis
sidaa aawadeed haddii wiilku idin xoreeyo runtii xor baad ahaan doontaan waan garanayaa inaad farcankii ibraahim tihiin laakiinse waxaad doonaysaan inaad iddishaan waayo hadalkaygu meel idinkuma haysto waxaan xaggii aabbahay ku soo arkay ayaan ka hadlaa idinkuna waxaad samaysaan wixii aydin aabbihiin ka maqasheen markaasay u jawaabeen oo waxay ku yidhaahdeen aabbahayo waa ibraahim ciise ayaa ku yidhi haddaad carruurtii ibraahim tihiin shuqullada ibraahim waad samayn lahaydeen laakiin hadda waxaad doonaysaan inaad iddishaan anigoo ah ninkii idiin sheegay runtii aan xaggii ilaah ka maqlay waxaas ibraahim ma uu samayn jirin waxaad samaysaan shuqullada aabbihiin markaasay ku yidhaahdeen annagu kuma aanu dhalan sinno aabbe keliya ayaannu leenahay oo waa ilaah ciise wuxuu ku yidhi haddii ilaah aabbihin yahay waad jeclaan lahaydeen maxaa yeelay ilaah baan ka soo baxay oo ka imid aniguna iskama iman ee isaga ay soo diray maxaad hadalkayga u garan weydeen waayo hadalkayga ma maqli karaysaane idinku waxaad tihiin kuwo aabbahood ibliiska yahay oo waxaad doonaysaan inaad samaysaan damacyada aabbihiin tan iyo bilowgii wuxuu ahaa mid dhiig qaba runtana kuma uu joogsan waayo runtu kuma jirto isaga markuu been ku hadlo tiisuu ku hadlaa waayo waa beenaale waana beenta aabbaheed laakiin runta aan ku hadlo aawadeed waad rumaysan weydeen midkeennaa baa dembi igu caddaynaya haddaan runta sheego maxaad ii rumaysan weydeen kii ilaah kuwiisa ka mid a erayada ilaah ayuu maqlaa sidaa daraaddeed idinku maqli maysaan waayo ilaah kuwiisa ma ihidin yuhuuddu waxay ugu jawaabeen miyaynaan runta ku hadlin markaannu nidhi reer samaariya baad tahay oo jinni baad qabtaa ciise wuxuu ugu jawaabay jinni ma qabo laakiin aabbahay baan murweeyaa idinkuna waad imurwad jebisaan anigu ammaantayda ma doono waxaase jira mid doona oo xukuma runtii waxaan idinku leeyahay haddii qof uun hadalkayga xejiyo weligiis dhimasho ma arki doono yuhuuddu waxay ku yidhaahdeen isaga iminka waxaannu garanaynaa inaad jinni qabto ibraahim waa dhintay iyo nebiyadiiba adiguna waxaad leedahay haddii qof uun hadalkayga xejiyo weligiis dhimasho ma dhadhamin doono miyaad ka sii weyn tahay aabbaheen ibraahim oo dhintay iyo nebiyadii dhintay yaad iska dhigaysaa ciise wuxuu ugu jawaabay haddaan is ammaano ammaantaydu waxba ma aha waa aabbahay kani ammaanaa kaad ku sheegtaan ilaahayna mana aydnaan garan isaga laakiinse anigu waa garanayaa oo haddaan idhaahdo garan maayo isaga sidiinna oo kalaan beenaale noqonayaa laakiinse waan aqaan isaga hadalkiisana waan xejiyaa aabbihiin ibraahim waa ku rayreeyey inuu maalintayda arko wuuna arkay oo ku farxay sidaa aawadeed yuhuuddii waxay ku yidhaahdeen weli 50 sannadood ma aadan gaadhin oo ibraahim ma aragtay ciise wuxuu ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay intaan ibraahim jirin anaa ah markaasay dhagaxyo u gurteen inay ku tuuraan laakiinse ciise waa dhuuntay wuuna ka baxay macbudka